صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مدحوينه مدنيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan gudaha iyo dalka dibadiisaba. dhammaan waxaan salaamayaa culamaa diinka, xildhibaanada, dhalinyarada Soomaaliyeed oo haween iyo rag iyo haweenba leh. meel kasta aad joogtaan waan idin salaamay. waxaan rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaar ah u jeediyo shacbiga Soomaaliyeed kana raali geliyo dii wax un dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan asmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda ay yeesheen. waxaan ka codsanayaa in arrintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi ay dhamaatay. waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulilah oo aan isla meel dhignay oo ay dhamaatay. waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo qur-aanka akhrinayay intii ducaynaysay kulligood waa mahadsan yihiin, iyo talooyinkii badnaa iga soo gaarayay muddadii asmada ay socotay. dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaaday hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacbigu soo gudbiyey. intaasaan ka qaatay, saa daraaddeed ayaan go-aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u hahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada 11 bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla ka sokow ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixid. waa laga maarmaan shacbigeena in loo naxo. ma qaadi karo shacbigeena in markaa murugo badan iyo dhibaatooyin badan lagu sii eego ma qumana. saa daraaddeed waxaan go'aansanay in arrintaasi aan uga roonaano. waxaa kaloo aan rabaa in aan markaa kulligooda ku baraarujiyo ama xusuusiyo Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliyeed annagoo dhan way naga wada weyn tahay. mar walba waxaa weeyaan waa dowlad curdan nahay in loo naxo, in markaa la taakuleeyo, in mar walba wixii wax ka soo gaaraya in markaa shakhsi ahaan wixii ah la hilmaamo. danta guud iyo wanaagga guud ee Soomaaliya in laga raaco ayaa lagama maarmaan ah. ma aan doonayno in dhibaatooyinkii laga soo baxay muddooyinkii ku meel gaarka ah iyo arrimihii gulihii in lagu noqdo iyo guulihii aan gaarnay oo la baabi'iyo waa arrin aan loo adkaysan karin, marna aan yeeli karin. arrinta kale oo aan weligay ilaa bishii Agoosto 2012 markii xilka golaha shacbiga la ii dhiibay arrimaha mabda ah waan ku adkaysanay oo markaa ilaa haddan aan ku adkaysanay waxay tahay in aan mar walba iska ilaalino faragelin shisheeye. in markaa arrimaha Soomaaliya dhexdooda ka dhaco in magaalooyinka magaalo madaxyada dalalka aan dariska nahay in loo aado arrintaasi ma ogolin. wixii mashkilo ah waxaanu leenahay golo shacbi oo shacbiga ka wakiil ah gaari kara go'aankii uu rabo, alla ka sokown ayaga uga sarreeya. Soomaaliya mushkiladeeda Soomaaliya xallin karta, faragelin shisheeye ida loo ordaayo waan ka soo horjeednay, waana ka soo horjeednaa, mana yeelayno. annagaa dhammaysan karna Soomaaliya ayaa waxaa garaad u leh garanaya shacbiga Soomaaliyeed iyo wakiiladiisa iyo dowladdiisa iyo madaxdiisa. marka saa daraaddeed waxaa weeye taana waan ka sariiganay, waan ka gadoodnay, waan ka diidnay in marka faragelin shisheeye ay soo gasho xaalkeen annagaa dhammaysan karna. marka idinku badin maayo. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamiciyiinta ah oo intaa telefoon soo dirayay mar walba iga weydiinaya qodobka maxaa loogu dhaqmi waayay, sidaa maxaa loo yeeli waayay. marka ayagana inay arkaan in dimuqraadiyada dhaqanka dimuqraadiyadeed oo aanu hirgelinay ilaa ay hadda aanu gaarnay shacbiguna dhadhamiyey in banduuq aan lagu hadlaynin, mar walbana waa dood wada xaajood iyo codayn lagu kala baxayo. inay arkaan in mar walba nabad iyo ilaalin qaanuun iyo dastuur iyo sharciga aan dejisanay iyo shareecada islaamka iyo dhaqanka suubanay Soomaaliyeed in mar walba la tixgelinayo. oo madaxdii beritaan tihiin dhalinyarooy waxaad yeelaysaan mar walba waxaa furan waddo nabadgelyo, waddo amni, waddo oo markaa is-afgarasho, waddo isu tanaasul ayaa mar walba furan. marka aan ka ilaalino dowladdan curdanka ah inay dib u noqoto. saa daraaddeed wixii hadda waxaan rabay keliya inaan idin xaqiijiyo, madaxweynahan u xaqiijiyo
in aan xilka ka wareegi doono berito haddii aan yidhaahdo markii ammaanadii oo ay ii dhibtay xildhibaanada aan u celiyo inay rasmi tahay ayaan rabaa inaan u sheego inta aan kusoo koobo wixii kaloo dheeraad ah waxaan ku fasiri doonaa hadal jeedintayda berito aan ka jeedin doono golaha shacabka marka aan xilka iyo ammaanada aan u celin doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxweyne kusoo dhowto waxaan rabaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan halkan salaan uga soo jeediyo waxaan u mahad celinayaa mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyay in ka badan muddo 50 sano ah xilal kala duwan u soo qabtay mudane jawaari waa oday Soomaaliyeed waa khabiir dhanka sharciga ah in badan dawladnimada Soomaaliyeed waqti aad u farbadan galiyay go'aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah wax shuruudo ku xiran ma laha waxaan ku dhiirigelinayaa mudane jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyay dawladnimada Soomaaliyeed gaar ahaan qabiiltirka dastuurka waxaan ka filaynaa inuu sii wado tala bixintiisii iyo tala soo jeedintiisa duulaahi raahid waxa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesano xaqiijinta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed oo ah dawlad wanaag adeegyada aasaasiga ah inaan gaarsiino inaan si wada jir ah ugu istaagno arrimaha masiiriga ah xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto maadaama ay hor yaalaan hawlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka waxaan kaloo aan halkan aan ku raahdaa aan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dawladda waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay garab istaagaan dawladda ayna la shaqeeyaan hay'adaha amniga ah si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka dawlad aysan shacabku garab taagnayn ma shaqeyn karto waxaana ku boorinayaa shacabka guud ahaan inay kaalintooda qaataan haddii Ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh